السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دوان إذين سلامي أدونكم ميل والباد كجوكتان كسو دوادا channelkeyga Munas Home gacmo furan iyo niyad saafi kusoo dhawaada. waxaa maanta inoo soo diyaariyay sabuuradahan aad arkaysaan oo aad u quruxda badan oo indhaha soo jiidanaya. waxaan rabaa meesha qadadeyda in aan wax yar aan qurxiyo, idinka ayaan jeclaystay marka in aan idinla wadaago decor yar oo aan ugu talagalay. marka waa kana labadaani sabuurada ayaan sameeyay, way kala daran yihiin maasha Allah, laba siyaabo oo kala duwan ayaan u sameeyay. marka waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago, idinkana sidaad u aragtaan iyo fikirkiina insha Allah hoos igu soo qora. channelkeygan haddii aad ku cusub tahay walaal fadlan subscribe, like and share, walaalahaagana ila wadaag, commentigana insha Allah waa xagiina. haddana videogiina ayaan bilaabaneynaa iyo sidaan u sameeyay si idinkana aad ugu faa'iidaan oo guryihiina aad u quruxsataan insha Allah. walaalahayga ila socda. wixii aan u baahanahay ayaan soo diyaarsaday. sabuuradahan cadka aad arkaysaan waxaan ka soo gaday dukaanka Dollar Store, $4 ayaa laga soo siiyay xabadkii, waana isku size. waa sabuurada oo way waaweyn yihiin. marka alaabihii dhan waa soo diyaarsaday, waa idinla dul marayaa si aad inagana u ogaataan iyo meesha aan ka soo gaday. kalaradan ayaan ku soo haray aan isticmaali doono. waxaan ka soo gaday dukaanka Biltema, waa ku qorayaa saad arkaysaan, waana buufinayaa. kalar gareey oo mugdi ah iyo mid qafiif ayaan soo gaday. cadaanna guriga ayuu horay igu yaalayba oo aan isticmaalay wax yar. marka waxaad kale u baahan tihiin dhalooyinkani oo aad arki doontaan hadda aan idin tusinaya insha Allah. dhalooyinkani waxaan ka soo gaday IKEA ayaan ka soo gaday. waa muraayad oo la jijibiyay, muraayad la jijibiyay waaye IKEA ayaan ka soo gaday. marka laba kala duwan maadaama aan sameyn doono labadaba, yani insha Allah waan idinla wadaagi doonaa. midna muraayad ayaan ka sameyn doonaa, midna waxaan ka sameyn doonaa glitter ama biriq sidaad u taqaanaan. marka muraayadahan IKEA ayaan ka soo gaday. haddii aad jeceshiin inaad kan muraayadaha aad sameysataan, labada nashqadna insha Allah waan idinla wadaagi doonaa, waan idin tusi doonaa. dukaanka IKEA ayaana ka helaysaan insha Allah. waxaa kaloo u baahan tihiin caano koolo iyo glitterkii oona hadda idin tusin doono. labadanba waad u baahan tihiin, waa nashqada kale aan rabo in aan sameeyo. caano koolahani waxaan ka soo gaday dukaanka la dhahayo Panduro, waad ka helaysaan. glitterkana sidoo kaleeto biriqaasna waxaan ka soo gaday Panduro ayaan ka soo gaday. online-ka ayaad ka dalban kartaan. caano koolaha labadaba oo sabuuradaha aan sameyn doono qasab waa caano koolo inaad isticmaashid, caano koolo la-aan lama sameyn karo. marka waa kana sabuuradii ugu horeysay ayaan la soo baxay. kalarkii oo gareeyga ahaa ayaan ku buufinayaa. kalarka oo dhan waan ku wada buufinayaa, kullina yani ma wada qarinaya maadaama aan rabo gareey iyo cadaan iskugu jiro inuu ii noqdo. marka wax yar oo qiyaas ayaan buufinayaa. meelihii aan arkan yani inuu iiga batay kalarkane waxaan sameynayaa wax yar oo cadka ayaa meelahaasi ku buuxin doonaa, meelaha kalarka iiga fakado. marka waa kana wax yar videoga waan buufsiinayay maadaama aan rabin inuu aad iyo aad u dheeraado. muhiimadda waxaa waaye in aad buufisid oo kalarka aad rabtid ayaad adiga ka dhigan kartaa. laakiin aniga hadda guriga qalin iyo silver iyo waxaan aad iyo aad u jeclahay gareey, saddexdaas kalar iyo cad. marka intaasi ayaan rabaa inaan qadada aan ka soo dhigo. sidaas darteed ayaa waxaan u isticmaalayaa kalaradaasi, laakiin kalarka adiga aad jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa. labadaba waa isku mid. markaad waa kana kalarkii meelaha oo kaaga batane oo adiga aadan rabin dhib ma lahan, cad ayaad ku buuxsan kartaa. hadda kalarkii oo kan waa kana waa soo wada buufiyay. wax yar waxaan rabaa marka gareegii qafiifka ah in aan dusha aan ka mariyo. gareegaasina waxaa ku jiro wax yar dhadhalaal ayaa ku jiro. dhadhalaalkaas ayaa muhiim ii ah in aan sabuurada yani quruxdeeda ii soo muujiso, maadaama meelo qaarkiis haddii aad arki kartaan waxaa waaye kalarkii madowga yani gareega tiq ayaa iga batay, madow ma ahan. madow ayaa loo maleynaa laakiin madow ma ahan. marka wax yar waxaan ku dilayaa kalarkii kale oo light gareega ah, gareega qafiifka ayaan ku dilayaa. gareega qafiifkaasina wuxuu ii batayba yani wax yaroo dhalaal yaroo biriq ayuu lahay. aad iyo aad ayuu ii cajibiyey. intaani marka waxaan sugayaa almost 10 daqiiqo ayaan sugayaa. 10 daqiiqo markaan sugay balkoonka kale iska dhigaysaa, wuu ku qalalayaa. daqiiqadba 10 daqiiqo ka badanba ma sugaysid maadaama hadda qabow uu jiro. waxaan soo diyaarsaday caano koolihii saad u jeedaan. wax yar ayaan qiyaasanayaa. teed kaleeto nashqad allaale nashqada adiga aad rabtid ayaa sameysan kartaa. aniga nashqad yaroo iska simple ayaan rabay. kuwa kaleeto insha Allah oo fadhigaan u rabo in aan u sameeyo waan idinla wadaagi doonaa. oo maxay ahayd nashqadaha oo Chanel-ka iyo
kuwaasna insha Allah mar kale ayaan soo gelin doonaa. hadda nashqad yar iska basic ayaan rabay, wax yar oo yacni soo daadanayo camal. marka nashqad alla nashqada jecesha ayaa sameynaysaa. sidaani ayaan maxay ahayd koola caanaha ayaan marinayaa meel walba oo aan rabo in ay qabsato dhaladii. meel walba ama dhalada muraayad aan dhahay, muraayad haddaad isticmaalaysid mise glitterka, meel walba aad rabtid marka inuu dhalaalkaasi kuu koro, waa qasab caano koolaha inaad marisid. hana kala baqiilin, caano koolaha fiican mari si hadhow oo yacni uu kuu qabsado. markaad waa kana wax yar waxaan sameeyey waan jiijiido hoos, sababta waxaan rabaa wax yar inuu dhalada wax soo daadanaya camal inuu u ekaado. marka waa kana dhaladii ayaan soo diyaarsaday, waan ku shubayaa. markaan ku wada shubo kaameradii ayaa iga dantay, karaali noqda. waxaa sameynaysaa meelihii banbanaana waxaan qaatay glitterka ayaan yacni ku shushubay, ayaan ku balbalay. marka taasi kaamerada maadaama uu iga dabay intuu jaajar uu kusii jiray ayaan sameeyey. xili dambe ayay ahayd marka, laakiin hadda afka ayaan idinkaaga sheegayaa. meelihii banbanaan oo dhan waxaad ku buufinaysaa glitterka. kan labaad markii aan sameynayo ayaad arkaysiin. hadda waa kana kii labaad ayaan bilaabay. kii koowaad wuu ii dhammaaday, meel ayaan iska dhigay, wuu ii qalalayaa. kii labaad ayaan bilaabay, isla sidii ayaan usoo buufiyey. kalaradii ayaan isticmaalay. waa kana tookadaani ma isticmaali dooni muraayadihii yaryaraay oo adaay aad arkaysiin oo dhalada ahayd, ma isticmaalayay. waxaan isticmaalayaa biriq ayaan isticmaalayaa. labada naqshadood maasha Allah si qurxan ayuu kusoo baxeen. labadoodba way kala daran yihiin. mar walbana waxaa jeclaa aniga maadaama guriga markii aan quruxsanayo oo kala in aan isticmaalo waxyaabo yacni ilmaha dhibaato aanan iga imaanaynin, maadaama ilmo guriga ay joogaan. waxaan idin sheegayaa sidaani markaad sameysaan oo kala ma aragtay wax yaroo qurxan oo guriga yacni qurux u yeelay waaye, haddana ilmihina dhibaato aanan kaasoo gaaraynin. muraayad kaloo aan soo gaday oo doolarka aan kasoo gaday hadhow idinla wadaagi doono ayaa jirta insha Allah. markii aan dhameeyaad arkaysiin. muraayadaas ayadana waa iska plastic, wax dhibaato ama problem ilmaha ay u keenaysa ma lahan. gurigaadina maasha Allah waa quruxsan kartaa iyagoo xataa caruur ay ku joogaan. mar walba waxaa muhiim kaliya inaad ka taxadirtid oo aad ka fikirtid yacni waxyaabaha aad gadanaysid. ilmo maadaama ay ku joogaan wax walba iskama gadan kartid, haddii kale maantan inaad dhowrtid ayay noqonaysaa. marka sabuuradahana waa saad arkaysaa wax yacni aad iyo aad easy ah, u fudud. nashqadu allah nashqada rabtid ayaad mar walba aad ka samaysan kartaa. waad bedbedeli kartaa, raqiis ayay kuu tahay, wayna kuu jaban tahay. gurigana maasha Allah qurux ayay kuu yeelaysaa. sabuurada kale oo aan rabo qolka fadhiga darbiyadiisa ayaan insha Allah idinla wadaagi doonaa. sabuurada waaweyn ayaan rabaa inaan sameeyo tookadaas, maadaama fadhiga darbigiisa aad u weyn yahay. kuwaasna insha Allah waan idinla wadaagi doonaa. muuqaalada aan soo geliyo haddii aad idin cajibi oo yacni waxyaabo qaarkiis aad tijaabisaan, waan ku farxi lahaa mar walba inaad ila wadaagtaan. dhiirigelin ayay ii tahay runtii, oo anigana waan ku farxayaa oo waxaan dareemayaa maasha Allah inaan walaalahayga Soomaaliyeed aan u faa'iideynayo. marka insha Allah idinkan ila wadaaga. marka hadda waa kana nashqadii ayaan weli aan sameynayaa. waxaan rabaa ii sheeg in aan u yeelo wax yaroo soo daadanaya camal inay u ekaato ayaan rabaa. marka sidaas darteeda 2 brush ayaan isticmaalaa, mid af dhuuban iyo mid af balaaran saad arkaysaan. insha Allah asxaabta haddii aad nagu cusubtihiin na soo dhaweeya. subscribe-ka nagala baqiilina, comment-ka waa xaggiina. maxay ahayd like iyo share intaba insha Allah waan idinka rajeynayaa. mar walba waxaan idinkaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ila socotaan iyo commentiyadiina oo dhiirigelinta iyo masajadiina mar walba Allah waan akhristaa, waan ku farxaa. insha Allah intaan yacni ka badan inaan soo geliyo ayaan jeclahay oo aan idinla wadaago. marka waa kana sidaan markaan u dhameeyo waxaan soo diyaarsanayaa marka alaabtii oo biriq aan isticmaalayo. nashqada allaal nashqada yarta ayaad isticmaali kartaa. qasab maatan aniga aan sameeyey mid aniga kasii qurux badan waad sameyn kartaa. mar yacni waxaa la rabaa le idea le maskaxda inaad ka shaqaysiisid, wax weynba ma ahan. markaad waa kana 2 biriq oo kala duwan ayaan isticmaalayaa. mid waxaa waaye indho waaweyn iyo mid yaryariis waaye, marka labadooda ayaan isticmaali doonaa. maasha Allah saan ayaan ugu balbalayaa meelihii banbanaan aan arkane. waxaan u adeegsan doonaa glitterka yar. hadda kan waa glitterka weyn, glitterka yar ayaan ku buubuuxin doonaa meelaha yaryar. hadda waa kana glitterka saan uu egyahay asigane silver waaye ama qalin saad u taqaanaan. labadaas kalar ani runtii aad iyo aad ayaan u jeclahay oo guriga dhan labadaas kalar ayaan jeclahay inaan ku sharxo. qalinka iyo maxay ahayd gareyga iyo white, maasha Allah kalaradaasi aad iyo aad ayaan uga helaa.
sababtoo guriga dhaldhalaal iyo qurux ayuu siinayaa indhaha yacni uu soo jiiday. haddii aad rabtid dahabina maasha allah waad ku sameyn kartaa. hadda kor nashqad kale ayaan soo geliyo youtube channelkii ku jiro, gabdho walaalihii ayaa waxay ila wadaagaan maasha allah ayagoo dahabi sameynayo. aad iyo aad ayuuna runtii u qurux badnaay. marka hadda waqti habeen ayay ii tahay, aniga waan ka seexanaya. markaan ka seexdo habeenkoo dhan meeshuu iska yaala waa iska qalalaa. subaxii darbiga markaan suro ayaan idin wadaagayaa. waxaa la rabaa si fiican in uu u qalalo oo wixii biriq iyo dhaladii inuu si fiican ugu dhego. haddana waa kana maasha allah sidaan ayay ugu soo baxeen. kii oo dhalada aan ku sameynay waa tanaa, kan kaleetana dhinaca kaleeto muraayadan idin sheegayna waa tanaa. muraayadan plastic ayay ka sameysan tahay, wax dhaawac yani ilmaha ay kaa geysanaysa ma lahan. kan waa kana dhaladii kan ayaan ku sameeyey. dhinaciisa kaleetana waxaa yaalo kan aan ku sameeyey biriq waa kana sidaad arkaysaan. labadooda maasha allah kalama yareystaan, inaba caadi maahan. aad iyo aad ayay runtii ani iisoo jiiteen, sidii aan yacni maskaxdeedu ku jirta camal ayuu ii noqday, maadaama aan rabay wax yaroo dhadhalaalayo birbirqayo gareey iyo maxay qalin iskugu jiray. maasha allah dhaladii aan idin sheegay muraayadan waa tanaa, waa plastic. haddana maasha allah si u qurxan tahay waad arkaysaan. insha allah walaalahaygiina ay iga faa'iidaysateen ayaan rajaynayaa. insha allah video dambe ayaan ku kulmeynaa anoo qadadiisii sharxayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.